waxaan raba ani leerta liida waxaa jooga gabdha liimo shukulaato weliba nooc karooto lisaax waxaan raba ani leerta liida waxaa jooga gabdha liimo shukulaato weliba nooc karooto fursadu ma helo fursamana kama rabo faciga inaan kaliita marnaba. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Please subscribe to Hal Abuur Somali channel. xilliyada isbuuca aniga iyo walaashay iyo gabar kaloo saaxiibteed waxaa aadi jirna magaalada waxayna noo jirtay 20 kiiloomitir waan ka soo casheyn jirnay waxaana jiray dad badan oo lacagna weydiisanaya sida duqaas oo kala tuugsado ahaa markii dambe cabitaan ka dharignay xaafadan u soconay si kadisa gabadha walaashay lacagtii daadisa ninkan wuxuu ku yiri mawaalanta yari aadi raali noqo lacagtaada waan ku soo aruurinaynaa ninkan gaarigan la hadlaan daaqadan ku qaraacay waxaan ku yiri saaxiib lacaga ku daadatay gaarigaada agtiisa naga wadbal gaariga markaas wuxuu igu yiri okay quruxleyda haddaan ka dhaqaajinaya runtii ninka gaariga wadana wuxuu u ekaa nin qamarji ah shakiyaaba ka qaadnaa markii dambe ninka lacagtiisa u soo aruuriyay ninka tuugsadahana hanaaqa wuxuu yiri lacagta maanta dhan baa qoli ku aruurinaa iga daadis ii soo aruuri gabadha saaxiibtay ahna inay wax aruuriso way diidaneed gabadhi walaashay waxay aragtay ninkan oo sawir naga qaada wariyaa kaale xagee u ordaysaa eeyo xunka wasaqa markaas waxay nagu tiri ninka muujeeda marka lacagta aruurinayseen sawiro idinka qaadayo waa nin tuug ah ninka hal isbuuc kadib aniga walaashay iyo gabadhi saaxiibtay waxaa aadna McDonald's u soo casheena kadib waxaa aragnay ninkii tuugsanayo meesha fadhiyaba yaab ninka tuugsanayana wuxuu yiri waan ku soo duceynayaa gabar yahay yar ana naxdin laguhona iga taabtay runtii aad u cabsanay dhamaanteen gabadhi walaashayna waxay ku tiri waryahay tuugsadayo wasaqdo dhashay maxaa ka wadaa waxaas wuu u jawaabay wuu cabsaday ninkii habeenkii dambe waxay soo wacday saaxiibtay waxay igu tiri niyo waa cabsanayaa niyo cabdiyo waa cabsanaa zaid weliba maxaa dhacaan ku yiri nin baa taagan daaqadeeda agteeda bal itus ninka arkay kaamirada iga tustay ana yaab wuxuu ahaa ninkii tuugsanay waxaan ku yiri albaabada dhammaan xiro gabadhi walaashayna waxay tiri niyo ani waxaan ka shakisanay ninkii gaariga cad watay ee ninkii tuugsada ahaa oo na dhahay waan ku soo duceynaa yariiso iyo ninkii sawirka naga qaaday gaariga cad watay markaan lacagta aruurinayna maalintii dambe waxaa aadnay duqi tuugsanayay saa u soo helno jawaab badan laakiin ninka wuu aamusnaa jawaab dhanna muu siinaynin yaab gabadhi walaashayna waxaan ku niri ninkii gaariga cad watay war ma ka haysaa ma taqaanaa shib gabadhi walaashay fartuun gadaali ka fiirinaysay saa ninka uu la sheekeysanay ninkii gaariga cadaaba gadaal looga imaado gabadhi walaashay ku soo ordooriya tuujiyo kaale anima taqaana aqoon ma ileeda wasaq iyo xunka waryahay ani magacayga fartuuna la yiraahdaa ma naxo ma fahmaysaa waji naxo iguma yaalo meeshan dambe haddaan kugu arko iska jir ma maqlaysaa booliisan kugu caawo orday gaarigiisuna wad niyo waxaan inay dhacayaan war ma ka haysay ilaa amarkiis ninkii uu hadlay odaygii tuugsanaya wuxuu yiri ninkan isbuuc ka hor uu imaaday wuxuu igu yiri gabadhaasaa rabaa saaxiibta ina afduubtee $600 aan ku siinaa niyo arrintan ii fuli adna hadlin sidii arrintina u sameeyay waa fahanteena u malayn ninkana magaciisu wuxuu ahaa Adam J saaxiibteena aad u shoogtay way naxday runtii saaxiibtay waxay tiri magacaas waa aqaanaa waa wiil iskuulkii la dhigan jiray aan nacay jaceelkiisa dhan aan nacay ilaa haddana uu daba socdaa maxaa sameeyaa markii dambe xaafadan aadnay ninkii gaariga cad watana lama arkin dib dambe waana qiso xanuun badan oo igu dhacday fadlan asxaabay like saara waana ku mahadsantiin daawashadiina maxamed wuxuu ahaa arday jaamacadeed wuxuuna raadinayay guri uu kiraysto markii dambe internetku wuxuu ka helay guri qurxoon oo 2 qol ah oona u dhow jaamacadiisa aad ugu farxay runtii isla gurigaas uu kiraystay gabar la yiraahdo Beeda ku nooleed oo 29 sano jirto
timo dhaadheer bay lahayd laakiin gabar aamusnaan badan bay ahayd. Way soo dhaweysay isla habeenkaas shopping ay isla doonteen ayadii Maxamed. Gabadhan beet la yiraahdana pizzada zaid u cunaysay gabar dhooni ahayd. Waxay ku tiri nin maxaa la xishoonaysaa wax ma cuntid. Ana waxaan ku yiri dhooninimadaadaan la yaabanahay dee qofiyay. Markii guriga ku soo laabtay waxay ku tiri nin Maxamedow ma rabtaa qolkayga inaa aragtid. Qolkii markii soo tustay Maxamed wuu naxay sawiro waxaa ku dhagnaa oo nooc kale oo atoorayaasha waagii hore ahaa. Gabadhan beet la yiraahdo markii shaqada ka imaado qolkii orod ku soo gali jirtay wayna qoqosli jirtay. Maxamedna wuu yaabi jiray wuxuu dhihi jiray mawaalanta. runtii gabadhan beet la yiraahdo Maxamed wuu ka shakiyay sababtoo ah gabar qamro badan ay ahayd qamradii zaid u cabi jirtay. Maxamed oo TV iska fiirsanaya gadaal ka soo fiirinay markaas wuxuu ku yiri qofii beet la yiraahdo doonida ah maxay iga fiirinaysaa horta aad mawaalantahay kalbal TV la daawa ha way u qoqosle. Hal habeen anigoo TV iska fiirsanaya gabadhan way soo gashay beet la yiraahdo lanchi ugu dartaana waxay ugu kaliftay filinkii inaan stop dhaho. waxay ugu tiri niyow jacaylkaada hore bal iga sheekay aad mawaalantaada saaxiibay jacaylkayga hore maxaa ka quseeyo. markaas ay igu qeylisay tiri eeyo iga kala jirno wasaqa warayga sheekeenay oo jacaylkaada hore maxaa ka qaldanaaday. markaas waxaan ku yiri booliiska 911 aan wacay jooga dikal. waxaan isdhahay meeshaan ammaan ma lahan albaabkaygana muu lahayn handaraab. waxaan sameeyey tuwaleedkii aan ku riixay albaabka waana seexday. saqda dhaxaweenimo waxaan maqlay tuwaleedkii oo la soo riixay waxaana soo riixaysa beet. ana lankan ku dar waxaan ku yiri maxaa rabtaan ayaa soco gabar qamraystay ahayd qamri ka dherigta habeenkaas. naayaha or seexa wax waalana tahay maxaa ka qaldan. waxaa maqlaa ayadoo albaabka sii xiranaysa seexata habeenka walwal aan ku seexday. subaxi markaas soo kacay waxaa arkay mindi banaanka taala naxdin waxaan sameeyaan garan waayay. runtii habeenkaas haddaan albaabkayga ku xiran lahayn tuwaleedka gabadhaas intii ii soo gashay i dili lahayd. wayna qamraysneed mindi weynna way wadatay. waadaydaa la maqli lahaa intii mindida igu dhufato waana